قال دعوتك الله يسوع إذا سنة سيد علي مدن قدومية محكمة شرفت له سيده وقبض غضب كبقول 8 وعن ربعين نسوق طول مرة بعددا عضيمه وحفيز كهالية جودة قارن كوهرك يعني محكمة ده دفاعي قرينادو أي ماشان كشيجين أي محضر كشيجين أما محكمة ده هرتيدا كدبنا عن سوجي ذي عصية حفيز كهالية جودة قارن كا كو لتك كو إذا سنة سيد علي marka ugu horeysa si guud wadaan u dulmaro aayadaha quraanka ay soo jeediyay qareen kamid ah qareenada difaaca eedeysanaha mudan gudoomiye dhamaantood waxay lid ku ahaayeen eedeysane Said Ali sababtoo ah waxay ka sheekeynayaan ama ay ka hadlayaan qofkii qof dilaa cawaaqibka uu la kulmayo waxay ka hadlayaan axaadiista iyo fiqiga uu soo qaatay dhammaan shuruudaha laga rabo marxaantiyaasha qaybta ugu dambeysay ee uu soo qaatay waxay ahayd ciyaalku inaysan galin marxaanti hase yeeshee qareenka waxa dhaaftay in caruurta maxkamadda horta markii la keenayo horteeda la keenayay la wareysanayo qaraa'in iyo xaqaa'iq ee aan loo horkeenin marxaanti ahaan aan loo horkeenin guud ahaan maxkamaddan ay u furan tahay wax kasta oo ay u arkayso in cadaalad lagu gaarayo ama qaraa'in ama wuxuun ku tusinaya inay maxkamaddu ay dhageysan karto si ay uga qaadato dalaa'il kale iyo isku xir kale iyo dhacdadaas ku xiran ay uga sii qayb qaadato midda kale oo ku xigta waxa weeye qareenka kale ee qareen xalane waxa uu sheegay maxkamadda horteeda ka sheegay inaanu dhicin in haddii uu dilkan u geysan lahaa eedeysanuhu uu noqon lahaa dil qorshaysan mudan gudoomiye waa maxay waxa dhimanay haddii dagaal dhacay ama farak hadal dhacay la baxay shidaal la soo gatay kii dabka lagu daarayay la soo qaatay qorshaha dhiman qareenku uu sheegayo ka sheekeynayo maana fahmin maxaa yeelay wuxuu ahaa jariima munadama waa la soo diyaariyay waxa weeye qorshuhuna wuxuu ahaa in marxuumadda lagu dilo haddii aan soo qaato aan kaga baxo qareenka labaad intaas eedeysanaha laftirkiisa waxa uu sheegay inuu ugu tegay daqiiqad kadib iyadoo ku dulgubanaysa furaashka taasi waxay daliil u tahay furaashka iyadoo ku jiifta in ficilkan lagu sameeyay marxuumadda qareenka ugu dambeeyay waxa uu maxkamadda horteeda ka sharaxayay warqadaasi waxay khusaysay xaaladda caafimaad ee markii cusbitaalka saa loo dhigay hase yeeshee qareenka waxa dhaaftay warqadda dhimashada oo uu cadeynayo dhakhtarku dhimashadeeda iyo sababtay u dhimatay oo maxkamaddana la wadaagin qareenadana loo gudbiyay arrintaas dhaaftay inta haddaan kaga baxo difaaci ay soo gudbiyeen qareenadu waxaan rabaa inaan dhowr dhacdo oo si kooban ana uga hadlayo aan soo gudbiyo mudan gudoomiye dhacdada koowaad waxa weeye oo dhacdooyinkaas oo ah dhacdooyin ku tusinaya ama qaraa'in ah oo ku tusinaya in eedeysanuhu uu galay falkaas si kasana uu u galay natiijada dhimashaduna ay ka dhalatay falkaas qodobka koowaad waxa weeye gacanta uu dhaawaca ku leeyahay waa gacanta bidixda ah waxaana ay ku tusinaysaa eedeysanuhu inuu u isticmaalayay baasiinka uu ku shubayay marxuumadda iyo jinsigaarka ama leetarka uu ku daarayay inuu u isticmaalayay gacanta midigta ah markii ay ay damacday inay isbadbaadisana uu ku riixay gacanta bidixda ah sidoo kale dhaawac yar baa wuxuu kaga yaalaa farta hore ee gacanta midigta ah dhaawacaasina wuxuu ku tusinayaa markii uu ku qabanayay dabka shidaalkan ku shubayay inuu soo gaaray dabka cirifkiisii ama dabkii uu gacanta ka soo gaaray uu ku daarayay qodobka labaad aan rabo maxkamadda inaan la wadaago waxa weeye qolka uu gubay kuna gubay marxuumadda qolka uu marxuumadda ku gubay eedeysanuhu inuusan ahayn qol qalabka jiifka ama guriga loogu talagalay qayb ka mid ay yaaleen waxa yaalay armaajo yar iyo sariir yar oo ay iska lahayd gabadha lagu magacaabo Farxiyo oo ay dhashay marxuumaddu waxa oo la buwaagtii ay wax ku baranaysay Farxiyo yari
waa gabadha curadda ah oo 10 jirka ah oo maxkamadda horteeda aan keenay ama timid sidoo kale mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh waxa ka dhex muuqda sawirada aan soo gudbinay qolka marxuumadda lagu gubay buugaagtii farxiyo boorsadeedii ayaa ka dhex muuqda alaabta jiifka iyo fadhigu waxay gaar u yihiin ay ku xiran yihiin qaybta gudaha ah ee qolka fadhiga iyo qolka jiifka iyo suuliga isku xiran halkaas waxa jira qaybtii muxuu ahaaytay jiifka ahayd sidoo kale eedaysanuhu waxa uu sheegay oo iyaduna qaraa'inta kamid ah ama waxyaabaha wax cadeynaya kamid ah inuu galay qolka jiifka ah asagoo soo gubay sida uu sheegay weeye qolkii yaraa asagoo soo gubay inuu galay qolka jiifka ah daqiiqadna inuu ku jiray daqiiqad kadibna uu ka soo baxay isla markaana uusan soo gubin qolkaas way uu gubi waayay hadii ay uu sheegayo eedaysanuhu hadduu qolkan soo gubay qolkan uu galay daqiiqadna uu ku jiray isla markaana uu ka soo baxay mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh taasna waxa weeye waa dhacdo muujinaysa inuu falkan ku tala galay eedaysanuhu qodobka kale aan soo gudbinayo waxa weeye gaarigiisa marka uu keeno eedaysanuhu xaafadda uu yimaado gurigiisu geysan jiray gudaha u gelin jiray ganjeelaha mararka qaarkoodna wuxuu dhigan jiray geerishka maalinka wuxuu dhigtay geerishka iridiisa afka gaarigana wuxuu u jeeday wadada jidcada ah ee ku dhacda jidka weyn ee laamiga ah taasina waxay daliil u tahay inuu rabay inuusan habeenka guriga u hooyan ee uu falka geysto kadibna uu iska baxsado eedaysanuhu inay tahay ku talagal eedaysanuhu dabka wuxuu ka soo qaatay sida ay noo sheegeen markaantiyaashu maxkamadan ay ka hor sheegeen qaarkood wiil dhagool ah oo joogay geerashka xilligaas muddo kadibna eedaysanuhu wuxuu qaaday tallaabooyinkaas maxkamadda horteeda laga cadeeyay oo aynu soo qaato baazinga inuu gudaha galo inuu soo daaro inuu ku soo gubo gabadha inuu saas sameeyo waxa uu sheegay eedaysanuhu inuu soo badbaadiyay caruurtana uu qaarkood soo guray asagu arintaasi waxa kama jiraan bal ganjeelaha weyna waa ku soo riixay shabaq ka horeeyo gurigana dushu kaga xiray labada dhalinyarada ay u dhacday guriga hadii gurigu furan yahay ma iyaga u dhici lahaa uma dhaceen ee albaabka ka gali lahayn xataa hadii albaabku furan yahay taasina waxay ku tusinaysaa inuu rabay inaan la ogaanba ay maamada iyo lixda ciyaalna ay meesha ku gubtaan sidaasna waxa weeye hadhowdii la soo weydiiyo oo loo yiraahdo koronta ku qaraxday ama si kala wax ku noqday marxuumadda Allah u naxariisto markaantiyaasha mid kamid ah wuxuu sheegay inay ku calaacalaysay wariyaa muslimoy walaalo hay gubin iyo kelmada shahaada ah oo markaas ay soo jeedinaysay wadana gudoomiye maxkamadda sharafta leh eedaysanada marxuumadda markay soo baxaysay ama ay guriga ka soo baxday ayadoo dalaadhacaysa ayay ku dhacday guriga ka soo horjeeda banaankiisa jirkeeduna waa gogo'ay bal qiiq ba ka kacay waxa ka kacay qiiq waxaan haynaa sawirkaas maana soo gudbin wax isagoo daabacan baan soo gudbinay laakiin haddii isagoo software la fiirsho wuxuu abuurayaa jawi kale oo ka baxsan waxa uu in la fiiriyo ama bini'aadanimada waxa uu qofkii qalbi jilicsan ma fiirin karo sidaa daraadeed waan soo gudbin doonaa haddii la yiraahdo isla 119 aan soo gudbinayna haddii maxkamaddu naga aqbasho way mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh eedaysanuhu sidaan hore u sheegay ayadana aan taamanayo ma fakadeen haddii uu falkani uga dhacay si aan ku talagal ahayn taasina waxay muujinaysaa fakashadiisu xataa ma ahayn fakasho ku siman degmada uu degan yahay ee waxa ahayd mid ka baxsan ilaa uu u gudbay gobol kale ilaa juhdi badan la geliyana ay uu doonayay inuu uga fakado wadanka dibadiisa si uga sii baxsado falka uu geystay mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh qodobka 434 waxa uu sheegayaa qofkii qof dila kasna u dila in lagu ciqaabayo dil toogasho ah maadaama aan dad islaam nahay fursadda kaliya u furani waxa weeye wali damku inay cafiyaan wali damku hadii cafiyaana bal iska badaaba tacsiir ahaan waxa loo gaarsiin karaa kiisaska noocan oo kale ah dil toogasho ah maadaama uu yahay
arrin fitnaynaysa bulshada Soomaaliyeed waxa uu dhaawac ka soo gaaray dabkaas uu ku bulbilay maamada Imaad Cabdirasaaq Maxamed oo dhaawac uu soo gaaray sababta dabka uu ku bilbilay ama uu ku gubay marxuumad Luulo oo ahayd hooyadiis asagana uu ka soo gaaray dhaawacaasna uu ilaa hadda la daala dhacay mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh marxuumad Luulo ama Luul yay ahayd tumay ahayd waxaan rabaa conclusion-kayga inaan ku daro tacriif yar oo maamadaas ku saabsan Luul waxay ahayd hooyo Soomaaliyeed oo korinaysa 6 carruur ah midna uurka ku sida isla markaana la daala dhacaysa noloshooda iyo waxbarashadooda iyaduna ay mas'uul ka tahay carruurtaas oo carruur agoon ah iyaduna ay u tahay aabbo iyo hooyo una buuxinaysa kaalinkii aabbaha iyo tii hooyada labadaba waxay ahayd iftiinka kaliya ee carruurtaas haysteen ay ku naaloonayeen mustaqbalkooda inay dhisto ay meel gaarsiiso mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh Luul waxay ka baxday dugsi hoose dhexe sare waxay ahayd jaamiciyad iskuulka aviation ka baxday waxay ahayd qof wax taqaan sidoo kale waxay ahayd qof u adeegaysa bulshada iyo qarankeeda labadaba waxa ay saacadaha qaarkood ay ka shaqeynaysay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde halkaas oo ay adeeg ugu haysay bulshada Soomaaliyeed xilliyada kale tana waxay u adeegaysay ciyaalkeeda wax baraysay tarbiyeynaysa arrimahaas oo dhan waxay muujinayaan qofkaas dhintay ee la dilay ee eedaysanuhu uu dhaafiyay dunida sabab ugu noqday inay ahayd qof macno ku leh wax tar ku ah isla markaana ay bulshada u baahan tahay sidoo kale sifooyinkeeda waxa ka mid ahaa waxay ahayd xaafidul quraan shaqadii ugu horeysana waxay ahayd inay lahayd arda quraan ay macallimad ka ahayd iyadu mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh dhaawacyada soo gaaray qoyska iyo carruurta waxa ka mid ah 6 carruur inay agoomoobeen rajoobeen waxa ka mid ah dhaawac soo gaaray aabaheed iyo hooyadeed oo aabaheed markii ugu horeysay uu arkay u dul qaadan waayay sida uu jirkeedu u go'ay isla markaana uga soo cararay ilaa ay ka dhimatay sidoo kale waxaan la qiyaasi karin dhaawaca guud ee soo gaaray saaxiibadeed iyo dadkii ay shaqo wadaaga ahaayeen mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh ilaa hadda waxay ku jirtaa talaagad lama geyn qabrigii lagu aasi lahaa taasoo ka tarjumaysa dhaawaca soo gaaray ehelka ugu dambeyntii mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh maadaama aan soo gudbinay cadeymo documenti iyo markhaantiyaal aan la qiyaasi karin oo ciidda ka badan oo dhinac walba taabanaya arkay maqlay dareemay intaba waxaan maxkamadda sharafta leh aan ka codsanayaa anoo ku matalaya dacwaddan xafiiska xeeraliyaha guud ee qaranka anigoo dacwaddan ku matalaya xafiiska xeeraliyaha guud ee qaranka in ay maxkamaddu ku qanacdo isla markaana ay si waafaqsan qodobka 110 cadeymihi aan soo gudbinay in eedaysane sayid cali macalin daawud lagu xukumo dil toogasho ah kaasoo ah qisaasta marxuumad Luul Cabdicasiis in hantidiisa uu leeyahay ee uu ka tagayo ama uu leeyahay lagu xukumo looga xukumo Imaad Cabdirasaaq Maxamed oo ah wiilka yar ee dhaawac ah magdhow iyadoo loogu xaq sooraayo ama loogu qiimeynayo hal intay tahay hal magdhow codsama kartid magdhow ma yar weey gudoomiye ma hal sharciga ugu fin magdhow cid codsanaysa sharciga sheegaya adiga dacwad ciqaab oogaya tahay marka codsigaaga sheego ilma yar weey wakiil baan ka nahay mar hal kuma noqon kartid okay maxkamaddu waa maasan tahay mudane gudoomiye waxaan codsanaynaa in eedaysanaha lagu qaado qisaasta marxuumad Luul Cabdicasiis oo lagu xukumo dil toogasho maxkamaddu waa maasan tahay sidoo kale waxaan codsanaynaa in aabaha oo jooga asagana la wareysto wixii xuquuq ah waa gabagabaysiba galka waa adiga ka dhamaad maxkamaddu waa maasan tahay hay